madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Czech Republic u fadhiya Addis Ababa. war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in safiirku safar ku joogo Somaliland. sidoo kale qoraal ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu sheegay in lagaga wada hadlay iskaashiga xiriir rasmi ah oo dhex mara dalalka Somaliland iyo Czech iyo sidii labada dhinac uga wada shaqayn lahaayeen horumarinta waxbarashada gaar ahaan farsamada gacanta, arrimaha ganacsiga iyo isu socodka labada shacbi. sidoo kale waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu warbixin mug leh uu ka siiyay wafdiga horumarka iyo wax wada qabsiga dowladnimada Somaliland ay halkan ku soo gaadhay inay tahay isfahan iyo wada shaqayn dowladda iyo shacbigeeda oo heegan buuxa u ah baa lagu yidhi inay ka mid noqdaan beesha caalamka kana helaan wixii ay xuquuq u leeyihiin iyagoo buuxiyay shuruudihii dowladnimo ee looga baahnaa oo dhan. ugu dambeyntii baa lagu yidhi waxaa kulankaasi uu ku dhamaaday is-afgarad buuxa iyadoo madaxweynuhu uga mahad celiyay baa lagu yidhi safiirka safarka shaqo ee uu ku yimid Somaliland. Idruus Maxamed Caynaan Goobjoog gudaha magaalada Hargeysa.